dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa markii ugu horeysay qaatay mas'uuliyadda dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoggi kaasi oo sanadkii hore 2018 lagu dilay wadanka Turkiga. hadal uu dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya uu ku qaadanaya mas'uuliyadda dilkan ayuu ku sheegay dukumeenti ay sameysay warbaahinta BBS kaas oo la baahin doono toddobaadka soo socda sida maanta oo Khamiis ah uu baahiyay telefishinka Al Jazeera. Maxamed bin Salmaan horay saacad ugama uusan hadlin dilka wariyahan loogu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Hayeeshee hay'adda sirdoonka ee dalka Mareykanka ee CIA-da iyo qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka ayaa mas'uuliyadda dilkan waxa ay dusha uga tureen oo ay ku tuhmayeen dhaxal sugaha Sacuudiga. laakiin xilliga mas'uuliyiinta Sacuudigu waxay sheegeen in door aysan ku lahayn arintaasi. Jamaal Khashoggi oo ah suxufi Sacuudiyaan ah ayaa firxad ahaan ku joogay dalka Mareykanka waxaana uu aad wax uga qori jiray muddooyinkiisii dambe xilligii noloshiisa oo uu dhaliilna ka sameyn jiray xukunka hoggaanka boqortooyada Sacuudi Carabiya taas oo keentay boqortooyadu ay colaad weyn u qaaday. waxaa la dilay xilli uu ku sugnaa qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay Istanbul halkaas oo uu doonayay inuu ka soo qaato waraaqo u fasaxi lahaa in xaas labaad uu guursado. dokumentariga uu ku jiro wareysiga laga qaaday Maxamed bin Salmaan ayaa la baahin doonaa bisha nagu soo wajahan kowdeeda oo ku beegan sanad guuradii ka soo wareegatay markii la khaarijiyay wariye Jamaal Khashoggi.